waxaan ku faraxsanahay maanta oo talaado ah haddaynu nahay bahda xarunta horumarinta haweenka ee Marwa in aan maanta ku marti qaadno oo xarunta uu nagu soo booqdo Dr. Farxaan Cali Dhimbil oo ah maamulaha guud ee xarunta Al-Huda Medical Al-Huda Herbal Clinic oo ah xarun caafimaad ona دكتورka ama Sheekh Farxaan uu dadaal dheer iyo juhdi badan ku bixiyay sidii uu ugu daweyn lahaa daawada dabiiciga ah ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dhammaan dunida inta u baahan daawadaas nafcigeeda la arkay waxaan maanta si gooni ah ugu faraxsanahay xarunta horumarinta haweenka Marwa oo ah xarun ka shaqeysa horumarinta iyo kor u qaadida dumarka Soomaaliyeed dhinacyada kala duwan dhanka culumta shariicada dhanka xirfadaha gacanta dhanka culumta qoyska dhanka quraanka dhinac walba ka hormarisa maanta in hoolka xarunta uu marti noogu yahay maamulahaas guud ee Al-Huda Herbal Clinic waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaaw xarunta waxaan rajaynaynaa in aan waqtiga aad nasiisay aan ka faa'iideysan doono waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan inta xuduurka ay ka soo qayb gashay kulankan sidoo kale si gooni ah TV-yada ugu horeeyaan Universal Mustaqbal Tusmo Kalsan iyo Kafi Media dhammaantood waxaan leenahay idinkana iyo Muqdisho Cable dhammaantood waa mahadsan yihiin intaas kadib haddaan barnaamijkeena hore u galno xarunta Al-Huda Herbal Clinic waa xarun caan ah oo Soomaaliya oo dhan iyo dibaddaba laga yaqaano uu hogaamiyo Dr. Farxaan waxay furuuc ku kala leedahay Nairobi Hargeysa Boosaaso Gaalkacyo Burco Boorama Wajaale Cerigabo Garowe Muqdisho South Africa maanta marka in uu xarunta horumarinta haweenka Marwa si gooni ah kulankan ay soo qaban qaabiso jaanisna u siiso ardayda ama dumarka Soomaaliyeed inay sheekha wax xalaal wixii su'aal ah oo ay qabaan ku saabsan daawooyinka dabiiciga iyo cudurrada in ay ka weydiin karaan waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Farxaan Cali Dhimbil oo kelimad gaaban marka hore u soo jeedin doona kadibna caafimaadka khaasatan caafimaadka dabiiciga ka hadli doona kadibna su'aalo furan aan jaanis idin siin doono qof walba wixii su'aal ah qofkii warqad ku soo qoray qofkii toos u weydiinayaba aan sheekha u bandhigi doono oo nooga jawaabi doono waxaan leenahay doctorka sheekha soo dhawaaw ahlan wa sahlan wa marhaban bik iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam qofku inuu ku qanco oo uu fahmo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu koonka ku kansaday ama uu ku abuuray marka waxaan isleeyahay jismigan anagu wuxuu raadinaynay laakiin markaan Marwo aragnay xaqiiqatan waxa tusaale noo noqotay in aan qalbiga u raadino wixii ka maqnaa sababtoo ah haddii mar Ilaahay kitaabkiisa qofku ku qanco hadafkii loo abuuray koonka uu fahmo intaas waxay ka weyn tahay waxa anagu waxaan u raadinayno Ilaahay subhanahu wa ta'ala na abuurtay isagu khaaliqa koonka waxa uu noo abuurtay noo tilmaamay wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala jin iyo insiba waxa noo abuurtay Ilaahay inay caabudaan Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay hadafka koonka laynoo keenay haddaynu nahay insi iyo haddaynu nahay jin wala aan la arkayn oo Ilaahay uu tilmaamay Ilaahay wuxuu yiri koonka waxaan u keenay Allah subhanahu wa ta'ala inay caabudaan cibaadada Ilaahay marka uu koonka noo keenay waa takaliya ee naar lagaga badbaaday hadaad qaadato jannana aad ku helayso hadaad ku qanacdo oo aad qaadato waxa laga yaabaa adduunka intaad joogto dhib yar inuu ku soo maro in xanuun kugu dhaco in wax lagu gaarsiiyo in dhibaatooyin aad la kulanto laakiin meesha rasmiga ah
ee runtii aad tegaysa noloshaadii ah haddaad maanta adduunka markaad joogto aad ka fekerto xaqiiqa waxaa ah in ay kuu dambayn doonto nolol raaxa leh nolol fiican nolol aan murugo lahayn digirta gaduudan iyo hilibka idaha iska ilaali alxamdulilaahi hadda dhib zaa'ida iguma hayso maxaan sameeyaa ila tali dictore burada xidid ayay haysataa asalaamu calaykum burada labaan u kala saaraynaa haddii ilaahay yidhaahdo buro dabiiciya oo qofka biniaadanka dabiiciya xanuun dabiiciya ku dhaca oo burooyinka la yaqaano iyo xanuun aan dabiici ahayn oo isha biniaadanka ay keento waana wax isu eg waxaa laga yaabaa qof kansar qaba inuu kansarku dabiici ahayn laakiin wax kala keeneen oo kansarkii runta ah ee la yaqaanay uu ahayn laakiin magacii kansarna uu wato fayraskiina uu wato laakiin uu ku yimi wax kale sixir ku yimi ama il ku yimi ama wax kale ku yimi marka waxaan doonaynaa bal horta inaan kala saarno buradu waa mid dabiici ku dhacda oo runtii jeermis koraya oo is ururiya markuu is ururiyo guntin buu noqdaa jeermiskii saana wuu ku fidaa aakhirna waxay isu beddeshaa xanuunad aada u daran waxaa kaloo jirta buro gabdhaha halkaa ku leh cabaydhaha si fiican u dhegaysta gabadh halkaa ka jiran ma jirto ilaa inta badan cabaayr bay leedahay waxaan halkaa ligliiga yaree quruxdee halkaa ku yaalla gabdhuhu hadday qarsan waayaan buraa kaa soo boodaysa xoqadaa ku qabanaya wax fara badan baa halkaa kaaga dhacaya ilaa adaa qarsan waayey ilaahay wuxuu ku siiyey khalqi quruxa markuu ku siiyey haddaad adigu qarsan weyso oo ilaashan weyso mid kale oo ishiisu xun tahay ama gabadh kale oo aan iyadoo caata ah baa laga yaabaa inay il kugu dhufato kabacdina laga yaabo in saasoo kale buro kaaga soo baxdo waxyaalaha la yaab kale ee daraasaadka aan ku samaynay waxaa ka mid ah gabadhu markay noo timaado ee tiraahdo halkaa cunaha wax aan ka qabaa kow su-aasha ugu horreysaan weydiino waxay tahay ma leedahay bahalladaas cabaayadhaha ma leedahay xaqiiqatan 98% way leeyihiin waa gabadha halka xanuunka ka qabta 80% yacni 9 way leedahay waxay ku dhahaysaa labaan leeyahay hal baan lahaan jiray waxaa halkaa markaa ka cad haddii aynu ilaahay subxaana wa tacaala nimcooyinka uu ina siiyey siduu yahay aan u qaadanno oo aan is ilaalinno ilaahay wuuna ilaalinaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaahay ku soo siiyey difaac baa lagu soo siiyey waxaa lagu yidhi adkaar baa lagu soo siiyey difaac baa ilaahay ku soo siiyey subxaana wa tacaala haddaad ka faa'iidaysato difaacaas oo ilaahay magangalkiisii aada la timaaddo iyadana waxaa laga yaabaa wax fara badan inay kuu badbaadaan laakiin haddaynu inagu isdayacno oo runtii quruxdeennii meel cidlaa soo dhigno oo aynu adkaartii ka tagno oo markaynu seexanayno aynu ilowno markaynu soo toosno ilowno markaynu musqusha gelayno aan ilowno dee wax inoo yaallaan ma laha cid walba oo jeermis wadda il ah jeermis weeye isha biniaadanku jeermiska cidda wadda ee sii daynaysa way kugu dhacaysaa laayay kansar maxaa lagu daweyn karaa muxuuna ka dhashaa jazaaka allahu khayran si looga hortago kansarku runtii waa virus qof walba jirkiisa biniaadanka wuu ku jiraa laakiin active maaha cidda uu active-ka noqdo ee uu shaqeeyo selskii uu dilo unbuu ku dhacaa laakiin waa cudur la ogaaday qof walba oo bini-aadan ah in uu jirkiisa ku jiro laakiin qofna active buu yahay qofna maaha qof wuu shaqeeyey oo xubnihii intuu dilay ayuu awooddii jirkao dhan qabsaday qofna waxaa waaye awooddiisaa ka tan badan difaaciisa jirka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku soo siiyey difaac cajiib ah difaaca ilaahay ku soo siiyey hadduu wig noqdo oo uu baaba'o difaaca ilaahay ku soo siiyey wuxuu ku koraa qudaarta waxyaalahan dabiicigaa ee runtii raashimada dabiicigaa sida hadhuurhka digirta waxyaalahan dabiicigaa ee beeraha ka soo go-a ee aan wax kale ku jirin wuu ku koraa qudaarta wuu ku koraa oo ku kobcaa wuxuu noqdaa inuu isdifaaco jirkii oo awood u yeesho kansarkii iyo wuxuu doono kaga takhaluso laakiin haddii adigii aad cunayso bariis iyo baasto oo cuntadii qudaar aadan haysan jirkaaga wuxuu noqonayaa wig xanuun walba oo jirkaaga ku jiray awood buu yeelanayaa
awoodii markuu yeesho wuxuu ka takhalusayaa oo uu baabi'inayaa saliskaagii difaaca ilaahay kusoo siiyey subxaana wa tacaala. marka waxaad noqonaysaa in xanuun walba hargab markuu kugu dhaco inaad dhakhtar la aado oo hargabkii uu noqdo mid active ah oo ka awood badan difaacaagii jirka. marka kansarku xanuunadaasuu ka mid yahay. waxaa la yaab leh nin baa maalin nin u yimi, markuu ninkii u yimi ninkii isagoo wheelchair ku socda buu wuxuu u yimi nin ku takhasusay nutritionka, waxyaalahan difaaca jirka dhisa ee cuntooyin ha noqdeen ama ha noqdeen qudaaro. ninkii wuxuu yidhi waxaan maqlay inaad daweyso cudurka kansarka, anigana 3 bilood baa laga qabtay inaan dhinto, maxaad ii samayn kartaa? wuxuu yidhi waxaan ku siinayaa keliya cuntada anigu aan cuno. bal si fiican u dhegaysta, dawo kuma siinayo yidhi, kansarna kaama daweynayo, keliya waxaan ku siinayaa waxa anigu foodka aan u qaato. oo wuxuu yidhi see ii daweynaysaa waxaad adigu foodka u qaadato? cuntada adigu aad cunaysaa aniga xanuun baa hayee xanuunkaasay uga takhalusaysaa. wuxuu u sheegay xanuunka inay uga takhalusayso. wuxuu yidhi waxaan soo dhisayaa difaaca adiga kaa dhintay, difaacagii baan dib u soo noolaynayaa, cunto fiican baan siinayaa, nutrition baan siinayaa, kabacdi difaacii wuxuu gelayaa inuu ka takhaluso jeermiskii markii hore ka takhalusay. marka isku daya, cudurkan waxaa lagaga takhalusaa oo runtii in badan oo annaga dadkan habolka ay ku guulaysteen. xaqiiqatan waxaan isku daynaa qofka markuu noo yimaado xanuunka qabo inaan difaaciisa jirka wixii lagu dhisi lahaa oo ugu fiican la siiyo. markuu difaacii dhismana wuxuu ka takhalusayaa jeermiskii jirka gudihiisa ku jiray. جزاه الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. سؤاشا waxay leedahay dhabar xanuunka waqtiga caadada maxaa sababa? dhabar xanuunka laba arrinba. waxaan u malaynayaa maanta xishood ma jiro, sababtoo caafimaad baa laga hadlaya. gabadha aan sunnaha u gudnayn waxaa laga yaabaa inay ku xanuunsato caadada, waliba waqtigaa laftigeeda, iyadoo dhib loo geystay oo ciddii soo gudday ay u geysatay, ama ha ogaato ama yayna ogaan. ciddii soo gudatay ayaa u geysatay, hadday dhalmo noqoto iyo hadday noqoto maaragtay wax kalaba. khatarna waaye, waa wax laysku qabsan karo. haddii aad ogeyd adoo maanta og gabadhaada oo yar oo ilaahay subxaana wa tacaala abuurtay, haddii sidii sharciga ahayd aad marin weyso, xaqiiqatan su-aal baa kaaga imaanaysa. berito markay ay ku dhibtooto dhalmadii, oo markay ku dhibtooto noloshii ninka ay la noolaanaysay, oo dhib uu ka qabsado, waxaa khatar u tahay adoo og in ilaahay subxaana wa tacaala su-aalo uu kaa weydiiyo. sababtoo waxaa ilaahay noo soo jideeyey waxaynu raacno. wixii ilaahay noo soo jideeyey siday tahay nebigu noogu soo gudbiyey sala allahu calayhi wasalam waa inaanu raacnaa. taasi way keeni kartaa in dhabarku qofka uu xanuuno waqtiga caadada. waxaa kaloo keeni karta infection, laga yaabo inuu isku hayo xubinta taranka ilaa dhabarka, iyadana way keeni kartaa. infectionkaasna wuu keenaa inuu maaragtay xanuun uu ku keeno waqtiga keliya ee caadadu ay dhacayso. tamir waa ka cudur daaranaya insha allah. khamiiska iyo garhka inta aragteen arma sheekh ay malaysaa oo su-aalaha iska kay weydiisaan wixii caafimaad iyo waxa insha allahu tacaala waan ka jawaabaynaa. waxaan soo xasuustay sheekh umal su-aal la weydiiyey oo su-aashan oo kale u yara eg. qofku ha ogaado horta qofku jin wuu ku jiri karaa, ama sixir wuu sixranaan karaa, ama dhib iloo kale way hayn kartaa, wuuna riyoon karaa. laakiin anigu waxaan aaminsanahay oo xaqiiq ay tahay, nin baa wuxuu yidhi su-aashu waxay ahayd shiikha la weydiiyey, waxay ahayd shiikhu wuxuu yidhi waa soomay. nin wuxuu ahaa dhalinyaro ah oo aan guursan. waa tii la yidhi qofku ha soomo. wuxuu yidhi waa soomay, weli waxaa weeye hawshaydii bannaankay taalla, soontii xitaa waxba iga tari laada. shiikhu uu ka jawaabo wuxuu yidhi naftaadaa been sheegaysa, xaqiiqatanna waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu noo tilmaamay waa xaqiiq waay. laakiin naftiisa iyo shahwadiisa laga yaabaa inay been u sheegtay, oo iyadii laga yaaba inuuna ku kalsooneyn waxa uu samaynayo, soonta uu samaynayo inayna dhab ka ahayn. marka shayga diiniga lagu tilmaamo waxaad ogaataa naftaadu hadday shay khilaafsan la timaado taadu inay been sheegayso, laakiin waxyigu uu yahay wax run ah oo xaqiiqa, oo haddii aad si dhaba u dhaqangeliso yacni maaragtay suurtoobaya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu sideedii ka dhigayo. waxaa soo laabatay gabadha riyoonaysa,
waxaa dhici karta gabadhaasu inay jiran tahay ama il ay hayso ama jin uu hayo ama ay sixran tahay riyadaasna sida ay kusoo laalaabanayso. laakiin anigu waxaan aaminsanahay haddii aan ku seexdo wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku seexan jiray inay xaqiiq noqonayso hurdadeedii oo si saxa haddaan cudur kale jirin oo weheliya oo si kale u dhibay. daweeyaa su-aasha ku xigtan waxay leedahay bararka jirka gaar ahaan lugaha barara iyagana maxaa lagu daweeyaa affectionkana maxaa lagu daweeyaa galaha waxaa lagu daweeyaa jabtida weeye galo gala haddaad maqashid waa jabti qofka ku xumaatay waa cudur runtii la kala qaado wuxuuna ku nool yahay cudurkaasu marmar wuxuu ku nool yahay dabada dambe waliba meel kulul buu ku nool yahay inta dambe saxarada gudaheeda buu ku nool yahay waxaa laga yaabaa bakteeriyay noqotaa markay bakteeriyada noqoto dumarka oo kale waxaa laga yaabaa dhaqitaanka ay israacinayso qaybta dambe iyo qaybta hore inay qaybtii dambe iyadoo ku jira oo halkaa ku nool oo halkaa ku kaydsan inay isdhaqdo dhaqitaanka isdhaqdana jeermiskii uu kor usoo raaco kabacdina uu ku sameeyo inuu xubintii taranka ku dhaco. taas waa in aada looga fiirsadaa. waxaa fiican xubinta markaad dhaqaysaan xubinba goonideeda u dhaqa. haddii kale waxaa jira xubnahan waxbay isu gudbin karaan. jeermis badan baa laga yaabaa baabasiirkoo kale wuxuu ku kaydsan yahay qaybtaa dambe oo runtii jeermisna aada u daran weeye. haddii marka xaggan kale uu soo gaadho waxaa laga yaabaa bakteriya kale inuu abuuro iyo infection kale. marka halkaa way ka timaadaa waxa lagu yaqaano qofka xanuunkaasu hayo intaynan dawadiisa gaadhin. laba dheecaan baa laga yaabaa qofka inuu ka yimaado. dheecaan gabadha waxaa ka imaanaya dheecaan caano u eg waa gabadha qabta jabtiga ama gabadha qabta galaha. waxaa kaloo ka imaanaya dheecaan huruud ah huruudan wejiga la mariyo u egya. qofkaasu hadduu labada dheecaan isku arko xaqiiqatan waxaa fiican inuu isgaadho sababtoo ah bakteeriyadaasu hadday gudubto oo makaanka u gudubto waxay la dagaalamaysaa waa ogxantii aada lahayd ee caruurta la rabayay inay caruurta ku dilaacaan ee hawshii dhammayd ee ilaahay kugu soo talagalay waxaa laga yaabaa inay baabi'iso oo qofkaasu laga yaabo inuu waxba dhali waayo ilaa laga soo daweeye mooye. markaa daway leedahay galaha dawuu leeyahay. raggana waxaa laga yaabaa xubinta taranku ku dhaca xiniinyaha wuu yareeyaa wax qoyaana marmar qofka ka yimaada. ninka qoyaan baa ka socda marmar oo malaxna aan ahayn qoyaankii loogu talagalay inay shahwadii waxa ahayna aan ahayn. markaa galahaasu dawuu leeyahay qofkii ilaahay ka daweynaya subxaana wa tacaala. su-aasha kale maxay isagoo jiifa ciladna aanan lagu sheegin maxaa lagu daweyn karaa. su-aasha xigta xarunta halkee laga helaa muqdisho xaruntan alhuda muqdisho halkee uga taallaa. waxaa jirta intaynaan u gelin su-aasha kaadida bidaarta ma taqaanaan bidaarta timihii gudahay ku jiraan laakiin waxaa diiday qayb ka mida maskaxdii inay akhriso oo inay kor u baxaan. sidaasuu qofku wuxuu ku yeelanayaa timihii soo baxayay buu waayayaa intii ku taagnayna waa sii go-aysaa sababtoo memorygii qofka loogu talagalay ama maskaxdii ku jirtay qaybtii loogu talagalay inay amarka dhiibto timuhu ay baxaan ayaa diidan inay amarkaa bixiso. sidaasoo kale kaadida qofku hadduu weyn yahay oo xanuun infectiona lahayn waxaa dhici karta in qaybta kaadida loogu talagalay inay xejiso inay ama xanuunayso ama maskaxdii loogu talagalay kaadida inay kaantaroosho inayna amarkii siinayn oo ay sii daynayso un amar sii daynaysay u bilowday bay sii wadaysaa un sii dayntaasay ku jiraysaa. marka labaduba daway leeyihiin qofka insha allahu tacaala daweyn baa la siiyaa fitamiino badan si bal maskaxdii memoriga aada loo dhisaa si maskaxdii ay dib qaybtaas ugu shaqayso ay isku daydo insha allahu tacaala inay awaamirtii dib u bixiso. xarunta waxay ku taallaa lambar 4 giija hotel la yidhahday ku taallaa lambar 4 wareega meesha wareega lambar 4 la yidhaahdo bay boodhka wuu arkayaa qofku markuu lambar 4 tago. su-aasha kale waxay leedahay gaaska maxaa lagu daweeyaa cambaarta iyadana maxaa lagu daweeyaa. su-aasha aan raacinaya waxaa weeye doctore qoorta ayaa in dhowr sana ah layga hayaa yacni in dhowr ah
ama muddo layga hayaa hooyaday iyo garbaha layga hayaa hooyaday iyo garbaha aniga sidoo kale lowyaha u fahmay iyo garbaha aniga sidoo kale waxaan leeyahay madax xanuun saa'id ah waana wareeraa markaan istaago waan wareeraa aniga fadhiyo cabbaar ma fahantay shukran margiyada garbaha qof laga haya haddaa aragtaan baabasiir baa halkaa degan baabasiirtu waa laba nooc mid gadaal wax ka tuurta finan iyo waxaas iyo cuncun iyo midna waxay ka biloobataa garbaha iyo margiyada marka 4 calaamadood hadday israacaan qofkaas xitaa hadduuna fin lahayn oo cuncun lahayn baabasiir baa waxay ku kaydsan tahay gudaha qofka jismigiisa 3 calaamadood waxaa waaye 4 calaamadood kow waxaa ku xanuunaya margiyada 2 garbaha ku darsamaya 3 caloosha istaagan oo caloosha istaageeda waxaa laga wadaa musqusha hore ma aadayo 4 wuxuu dareemayaa kulayl ama lugaha ha noqoto ama gacmaha ha noqoto xataa hadduuna fin arag laakiin inta uu leeyahay waxaa u qarsoon baabasiir wareerka waxaan u naqaanaa 2 arrin ba inay keenaan islaantu dhiig la'aan hadday tahay ama wiilku uu dhiig la'aan yahay way keeni kartaa inuu wareero waxaa kaloo wareeri karaa dhiig karka qofka hadduu dhiig kar hayo isna wareer buu bixinayaa marka qofkaas waa inuu iska baadhaa inuu dhiiggiisu yar yahay oo dhiig u baahan yahay iyo in awooddiisa faytamiin la kobciyo iyo inuu dhiig kar leeyahay isha bila'aadankana marmar wareer bay samaysaa iyada laftigeedu wareerka way ka qayb qaadataa marka wareerkana intaasaa keena gaasku waa shukumaanka qofka bila'aadanka ilaahay wuxuu soo siiyey difaac calooshiisa ku jira caloolaha waad aragteen caloolaha adhigaad cuntaan dadku ay cunaan waxaa ku jira shukumaan baa ku samaysan shukumaankaas samaysan qofka bila'aadanka isna wuu leeyahay marka waxaa samaysmaysa meel ka mid a waxay noqonaysaa boogta markay noqoto aashito walba oo aad afka ka qaadato waxay ku dhacaysaa boogtii markay ku dhacdo xanuun baad dareemaysaa canjaladii khamiirka lahayd waxaad ka qaaday xanuun wax walba oo khamiir leh ama aashita ay ku jirto waxay isku dayaysaa jirkaagii inuu diido markaa dawuu leeyahay gaastu waa 2 nooc waxay ku dhacdaa mindhicirada oo bacteria loo yaqaanaa noocna waxay qabataa intaa xabadka ah halkaas ayay degtaa ilaa intaas bay fadhiisataa oo iyaduna waxay samaysaa aashitadaasa aada u dhibta cambaartu waa skin disease wax la yidhaahdo waxaa ku dhaca qofka disease baa ku dhacaya maqaarka markuu ku dhaco wuxuu samaynayaa cuncun way isxoqaysaa waxbuu samaynayaa furuuc buu samaynayaa muhiimaddu waxay tahay qofka in la keergareeyo jirkiisii oo waxa keenaya ama waxa uu diidan yahay ama waxa skinka keenaya in laga ilaaliyo oo aada loo ogaado labadaa dhaforna way xanuunaan marka kuleylna wuu dareemi karaa marka waxaa fiican qofka in la baadho oo la ogaado waxa keeni kara kuleylka ma il bila'aadan baa su-aalaha la weydiiyey hadday il bila'aadanta oo combyuutar ma soo saarayo aaladda bila'aadanka loogu talagalay waxaa loogu talagalay in yacni lagu baadho keliya sida malaariyada waxyaalahan qofka ku dhaca skin diseaseka tifowga yacni TB-da kansarka waxaasuu akhrinayaa laakiin isha bila'aadanka insha allahu tacaala raggiinni way seexdeen raggii wax idii soo saari lahaa idinkoo idiga seexdeen marka isku daya insha allahu tacaala dadkan cilmiga baranaya ama diin barta ama cilmi kale barta isku daya inaan u hello dadkeenna waxaa lagu ogaado kow wax lagu baadho xaqiiqiya waxaad arkaysaa cilmiga la barto cilmiga intiisa badan feeg buu badan yahay wax runa maaha cilmigan meelaha lagu barto maaha ka diiniga kama hadlayo wallaahi waxaad arkaysaa wallaahi dadka waxaa loo soo gudbinayaa wuxuuna anfacayn markaasaa laga yaabaa 500 sano talyaanigu cirbadu soo saaray kaliya inuu qori karaba war maxaa adiga 500 sano talyaanigu ku daba istaajiyay qof wax bartaa tahay ummadaada maxaad u soo saari weysay maxaad cirbadu soo qaban weysay maxaad yacni u fakari weysay inaad adigu wax samayso ma wala barinba inuu wax soo saaro sababta waxaa cilmi aan xaqiiq ahayn baa loo dhiibay waxbaa tahay baa la yidhi tay baa loo xidhay marka aynu isku dayno inteena dambe wax baranaysaa hadday caruurteenna noqoto iyo hadday dadkeenna waaweyn noqoto
iyo hadday gabdhaheena noqoto waxaan baranayno ee meelaha u aadayno inaan fiirino xitaa war waxaanu xaqiiq ma yihiin waxaan laynoo sheegaya habeen iyo maalin buugga u wadano ma wax saxa mise waa wax qalada midda kale waxaad ogaataan cilmigan hadda la soo gooriyey ee intiisa badan runta ah ee qalitaan ha noqoto caafimaad kale ha noqoto dadkii muslimiinta laga soo gaadhay laakiin adiga waa lagaa qariyey xaqiiqatan John Hun iyo Michael John iyo waxaasaa soo saaraa lagu leeyahay maskaxdaadii baa la qabsaday oo cheating lagu sameeyey dadkii muslimiinta ahaa ee soo dadaalay waqtigii cabaasiyiinta umawiyiinta waxaasoo dhan waa dadkii ugu horreeyey ama technology ha noqoto ama cusbitaalo ha noqoto ama wax la qalaya ha noqoto ama koronto la shidaya ha noqoto dadka muslimiinta laga soo gaadhay marka aynu dib ugu soo laabano saaxadeena insha Allah ta'ala inagoo wax walba ka dhigayna inay xaqiiq lagu saleeyo xaqiiqun ku saleeyo bis waxaan aad dhiganaysee ee lagu dhigayaa bal dib u fiiri horta maxay yihiin ma wax saxa mise wax waqtiga lagaaga dhuminayo shiyeen oo soo maray checking oo soo maray hay'adaha wax baadha oo soo maray yani wax walba oo baaritaan u baahan dhowsna way leeyihiin runtii waxaa laga yaabaa waxaa maalin gabadh baa ii timi gabadhaasu waxay ka cabanaysay waxay tiri buraa maskaxda iga koraysa waan baadhnay runtii buradii maanan arag maskaxiyan in dee burada u jirto waan garan weynay gabadhii 3 dawaan siiyey 3 dawo markaan siiyey 3 casho ka bacdi way soo laabatay waxay igu tiri xanuunkii inaan ka sii daro mooyee sheekhow wixii aad siisay waxba ima tarin maalintaa aniga waxay hortaalay dawo yar oo Laisman la yiraahdo Laisman oo Malaysia ka timaada oo Alhuda ay gado Laismanka waan iska cunaa anoo selskayga dhisayoon jiranayn dawooyinka anagu aan samayno waan idin sheegay waa food supplement waa wax qudaar ah oo jirkaaga oo dhan difaaci bay soo celinayaan difaaci markay soo celiyaanna yani maaragtay jirkaaga wuxuu noqonayaa nadiif gabadhii waxay aragtay anoo 20 ka cunaya iyaduna 2 subaxii iyo 2 habeenkii way cunaysaa wax ila yaabto waxay tiri sheekhow misdilaysaa saani maxaa dhacay kiniinka aniga aad siisay tiri 2 ka cun subaxii habeenkiina 2 ka cun adigu 20 baad ka cunta ana waxaa yiri adigu dawaad u aragtaa laakiin dawo ma arko adigu waad ii timi waad jiranayd waxaan ku siinaya inaan dawo kugu daldalay adoo haysataa mooyee dawo maaha waa food supplement in walba oo jirkaaga uu ku bato wuxuu dhisayaa degdeg u dhisayaa difaaci awooddaadii oo dhan baa waxay noqonaysaa awood buuxda gabadhii maalintii bay bilowday 30 bayba ka bilowday hortaydii 2 casho ka bacdi iyadoo xanuunkii haysan oo le xanuun bay ma hayay timi marka waxaanu dawo maaha runtaan idin sheegaya islaantii ii timaada food supplement baan ku miisaya dawo ku miisayo adigu laakiin soo inayeysa inaad dawo qaadanayso adaa jirana u malaynaya dawo in lagu siinayo kansar intaasoo qof baa hadda intaan soo degnay aan ku guulaysanay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka saaray oo negative noqday laakiin ma dawaan siinay maya waxaan anugu qaadanayaan siiyey waxa aan ku quraacanayo kiniinka aan cunayo iyo sharabada aan cabayaan siiyey waay anigii aan u qaadanayaa iyadii kansarta qabtayna u qaadanaysaa waa u wada baahanna adiguna waad u baahan tahay qofka fayowna wuu usii baahan yahay sababtoo ma waxaad sugaysaa inta difaacaagu intuu jeermisku ka tambato u baabi'iyo waa maya isku day haddaad awood leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax ku siiyey inaad intaad waxaa barato saad u cuni lahaydna aad barato dadka waad ka cajiibsanaanaysaa jirkaagu wuu ka fiicnaanayaa awooddaada difaaca kuguma soo degdegaya xanuunku wixii ilaahay qadara mooye subxaanahu wa tacaala waxaad noqonaysaa qof dhisan ilmaha lagu koriyo waxa anagu aan hayno isku memory maaha iyo ilmaha kale xaqiiqatan waxaad arkaysaa ilmo 2 guri oo isku xiga ka soo baxay oo midna food supplementigana uu isticmaalayo midna uuna isticmaalayn haddana kaafiya kala dheeriye maskaxdooda iyo caqligooda iyo koritaankooda intaba way kala duwan yihiin waxaan isku daynaa dadka inaan uga faa'iideyno waxaan isku dardari doonaa cuntada dabiiciga caruurta yaryar ee aad korinaysaan ha dilina idinku naftiina ha u dilina oo maxaad ku dilaysaan canjeelaad u qasaysaa caawo dhan garaacaysaa
subaxiina waad u dhiibaysaa waad dishay ilmaha ilma aad kobcisay maaha runtaan kuu sheegaya ilmaha adaa ilmahaaga ka reebay ilmaha kale ka reebay laakiin markaad mushaali digir ka samaysan ama mid garow ka samaysan haruur ka samaysan intaad u shiido aad siiso awood buu yeelanaya haddaba si fiican ogaada ilmaha burka aad ku wadaan iyo bariiska aad ku wadaan iyo sonkorta aad ku daldalaysaan intaad ka daysaan waxyaalaha dabiiciga ah ee ilmuhuna uu ku kobcayo u sameeya koob mushaaliya adoo siiya ayaa difaaciisii oo dhan soo celinaya meeshaad canjeelo markaad siisa difaaciiba ay la kacaysaba iyada ay baabiinayso marka isku daya insha allahu tacaala annagu dawo ma bixino laakiin waxaan siinaa food supplement waa cunto loogu talagalay caafimaad oo kiniinay ka samaysan tahay sharoobooyin bay ka samaysan tahay kaabsoolay ka samaysan tahay runtii waa soo qaadi lahaa su-aashaas oo kale haddii lay weydiinayo bilahi tawfiiq mooye bal ka waran gaal uu ku aaminsiiyey oo uu kuu sheego kuu akhriyey dhiigkarkii dawo ma laha wax la yaab la waasha wax la yaab la gaalka kuma ahe isagu massajkiisi wuu ku gaarsiiyey laakiin wax la yaab la waxaa ah cidda qaadatay ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam u nafs sheeganaysa waxaan la yaab leh oo aan ku soo bandhignay meelaha qaarkood 9 casho dad ay dhiigkar 15 casho qabay oo 9 casho kaga tegay waxaan soo bandhignay sonkor intaasoo sano dad qabay oo ilaahay ka kaxeeyay subxaanahu wa tacaala cudur aan dawo lahayn ma laha laakiin beenta laynagu akhriyay intaan meel dhigno aynu runta usoo laabano dhiigkarku dawu leeyahay bronkitada daway leedahay qof ilmaha yar ee bronkitada hayso ugu dadaal cuntada dabiiciga ugu dadaal jirkiisa ha soo dhismo insha allah qudaar dawaysana waa la siinayaa laakiin adigu horta bal soo bilow canjeelada ka daa burka ka daa waxyaalahan aan danta u ahayn ka daa baastada ka daa waxyaalaha dabiiciga inoo soo baxa si maad ahaan saan soo sheegnay gabadhu hadday tahay gabadh xubnaheedii la baabi'iyey way dhici kartaa inuu soo laalaabto xanuunkaas waxaa kaloo jirta infection qofka bini'aadanka hadduu ku dhaco iyadana waa wax dhici kara in dhiiggaas uu saa noqdo waxaa kaloo jirta nooc shaydaadiinta ka mid ah oo dhiigga ku taxalluqda oo culimmaduba markii dambe ay u ogolaadeen salaadii inay tukato gabadhu iyadoo dhiigaysa waxaa laga yaabaa in ninkeedu marka uu magaalada yimaado dhiig ay bilowdo oo ninkii dhiiggii maxaa isku xidhay sheekhii magaalada yimi iyo dhiiggii islaanta maxaa isku xidhay inuu yimaado waxaa loogu talagalay islaanta shaydaan baa ku jira ama shaydaan baa ku jirta waxay isku dayaysaa kulanka wanaagsan ee ilaahay ku israaqay qofka inuuna sina u dhicin wax dhaca tan ogaansho la-aanta waxaa dhici karta qofka bini'aadanka maskaxda inuu ama wax xasuusanayo oo uu saa ku tegayo ama laga yaabo amraadan isha bini'aadanka ku dhacda way keentaa qofku inuu maqnaado waxay keentaa inuu qalalo oo gabdhahan suuxaya waxaa laga yaabaa iskool baad dhammaysay lambar fiican baad gashay maalintii lagu soo istaajiyey halkaa ee la yidhi lambar fiican bay gashay inay soxdin bilowdo ilmihiinna marka aad shahaadooyinka u qaadaysaan ama waxyaalahay ku guulaysteen tartanada kow isku daya haddaad bakeenaysaan oo meesha soo istaajinaysaan in subaxii adkaarta aad soo akhrisataan waxaa indhaha la saaray isha bini'aadanku mucjisay u tahay qof hadlaya inuu hadalkii joojiyo oo shib yidhaahdo marka aynu isku dayno difaaca ilaahay u nasiyey subxaanahu wa tacaala inaynu qaadanno oo ku dhaqanno hooyada dhiigkarka uu hayo sonkortu hayso insha allahu tacaala sida dadka sonkorta u haysay dhiigkarku hayay ilaahay uga kaxeeyey waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala